qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay saxaabigii ay malaa'igta dhaqday meydkiisa iyo sababta ay u dhacday arrintan. intaan u sii gudagelin qisadeena, fadlan waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe garayso aadna gambaleelka furato si ay kuu soo gaaraan mar walbo aan soo gelino muuqaal. mahadsanid. saxaabigan wuxuu ahaa xandala ibnu abi caamir. waxa uu ka qayb galay dagaalkii uxud ee dhacay sannadkii 3aad ee hijriyada, waxaana ku shahiiday asxaab waaweyn oo qaali ah oo uu ka mid yahay xandala ibnu abi caamir radiyallaahu canhu. xaaskii xandala waxaa la dhihi jiray jamiila bintu cabdullaahi ibnu ubaya ibnu abi salool. aabbeed wuxuu ahaa munaafiq weyn oo gaalada madax u ahaa, waxaana loo yaqaanaa ra'sulkufri wannifaaq. laakiin gabadhiisa munaafiqad ma ahayn ee waxay ahayd gabar mu'minad ah. habeenkii ay aqalgaleen xandala iyo jamiila, maalintiina waxaa dhacay dagaalkii uxud. markii uu dhammaaday dagaalkii ayay asxaabtii gudagaleen inay isku keenaan intii ku shahiiday dagaalka, balse waxay waayeen saxaabigii xandala. hase ahaatee mar dambe ayay heleen asaga oo qoyan, hareerihiisana ay biyo yaalaan, waxaana la ogaa inuusan roob di'in, meeshana ay ahayd meel saxaro ah. asxaabta arrintii ayay rasuulka sallallahu calayhi wasallam u sheegeen. rasuulkana wuxuu yidhi, khasalatulmalaa'ika, malaa'igta ayaa dhaqday ee ii doona arrintiisa siday ahayd, soo ogaada ayuu asxaabtiisa ku yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam. asxaabta waxay u tageen xaaskii xandala. markii ay weyddiiyeen arrintii xandala, waxay ku tidhi, subaxnimo markii lagu dhawaaqay dagaalkii oo aan maqalnay qaylidii ayuu orod ku baxay, mana uusan qawaysanin oo wuxuu qabay janaabo. kadib rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayay u sheegeen. asxaabtii wuxuu yidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxaan arkay baafaf iyo saxamo oo biyo lagu sido oo samadda kore ka imaanayo. subxaana allah. saxaabigan wuxuu ka mid ahaa 4 nin ay ansaar, khaasatan qabiilka reer oos, ay ku faani jireen, waxayna dhihi jireen, waxaa naga mid ah xandala ay malaa'igtu dhaqday meydkiisa. waxaa kaloo naga mid ah saxaabigii marka uu dhintay meydkiisa ay difaacday shinnida. sidoo kale waxaa naga mid ah saxaabigii rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yidhi markhaatigiisa wuxuu u dhigmaa 2 nin rag ah. iyo sidoo kale saxaabigii qaaliga ahaa ee geeridiisa la gariiray carshiga raxmaanka.